kulanti wanaagsan khiyaartana daawatay meel kasta joogtaan idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka Martisoor oo inaga yimaada telefishinka caalamiga hadaayeen oo kale barnaamijka Martisoor waxa maanta marti noogu ah Suldaan Cabdisalaan Suldaan Maxamuud oo kamid ah isimada waaweyn ee deegaanka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug Suldaan Cabdisalaan oo ka soo shaqeeyay dhinaca nabadda iyo horumarka ayaa waxaan rabnaa in aan ka wareysano dhinacyada kala duwan oo ka tirsan xagga nabadda iyo horumarinta magaalada Gaalkacyo iyo sidoo kale mar uu ka shaqeyn jiray hay'adda DRC oo wax badan ka qabtay deegaamo kala duwan oo Soomaaliland iyo Puntland ku yaala kuwaas oo dad badan oo ama beelo islaayay ay u gacan ka geystay sidii loo xalin lahaa haddaba aan ku soo dhawaano barnaamijkan oo aanu maanta marti uu nagu yahay suldaanku ugu horeyn suldaanka waxaan leeyahay ku soo dhawow telefishinka caalamiga ee Soomaaliland nooga warantaa arrimaha nabadeynta oo in badan lagu yaqaan inaad gacan ka geysatid iyo hawlaha halka ku marayaan aad baan idin salaamaya idinka iyo daawadayaasha Soomaalida ah idaacadda Somali Channel idinka daawanaya markaan su'aashaada toosu'aado ka shaqeynta nabaddu aniga shakhsiyan waxay ii tahay cibaado ii tahay waxay ii tahay dhaqan waxay ii tahay noloshaydii weeye sidaa daraaddeed intii aan tabargalay waxaan ku soo jiray ka shaqeynta nabadda ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda ka soo bilow ilaa 88kii oo aan aabahay u siday weysada ilaa iminka waxaan ku jiraa inaan ka dhex shaqeeyo sulxiga iyo isu soo dhaweynta qabaa'ilka iyo beelaha Soomaalida ana u gelinta dhaqanka oo familiga waxaan rabaa waxaad la soo shaqeysay hay'adda DRC marka meelo badan baa wax ka qabatay oo ka mid yihiin gobolada Sool Togdheer Sanaag Bari Mudug iyo Nugaal marka waxaad nooga soo qaadaa bal hay'adda waqtiga la shaqeynayay iyo hawlihii culcuslaa aad ka qabatay iyadoo in badan aan ognahay bal hawlo badan aad ka qabatay deegaamada iyo dadka ku noolba kaliya lama soo shaqeyn hay'adda DRC hay'ado kale oo far badan baan la soo shaqeeyay iyadoo kamid tahay FCA United Nations Political Office oo aan iyagana kala shaqeeyay barnaamij ku saabsan nabadda barnaamijkan sidoo ku bilowday oo deegaanada Boosaaso ilaa Gaalkacyo ilaa Laasacaano aan ka shaqeynayay wuxuu ku bilowday aniga askala hindisaha ana u geeyay proposalka in laga shaqeyn karo xalinta qabaa'ilka dhexdooda wuxuuna markii ugu horeysay barnaamijka laga shaqeeyay noociisa runtii waxay ahayd fursad aan isleeyahay waxay ii ahayd abaal aan isleeyahay DRC oo ku gashay iyo hay'adii kale maxaa yeelay mihnadii aan ka shaqeynayay bay gacan iga siinayeen dadkaygii iyo gurigaygii wixii ka dhacay aaliyaadkii iyo farsamadii aan ku dhayi lahaa ayaan ka helay waxaa ka mid ahaa heshiiskii calool baa ka mid ahaa exactly oo 56 sano soo socday waqtigii Somaliland British ay joogeen deegaanka xukuumeen dhacay oo isku dayeen administrationkii Ingiriiska markaas isku dayeen dawladdii dambe oo isu tagtay Soomaalidu ay isku dayday inay xalliso oo isku dayday dawladdii Maxamed Siyaad Barre oo kadibna ay isku dayeen hadii rabbu ku idmaayo markii dawladda Soomaaliya ay burburtay maamuladii iyo dadweynihii deegaanka laftooda isku dayeen laakiin aan suuroobin laakiin fadliga Ilaahay ka sokow ay fadliga Ilaahay ay anaga noogu suurtooday bidaat anigu dhexgalkan dhexgalay ay ku suurtooday hadii rabbu ku idmaa inaan maartay arrintaas ay dhamaato balse caqabadaha la nagala kulantay sababta isku keenteen waxaan ku kaftami karaa intan hawsha ku jiray baa islaan waayeel ah oo aan isleeyahay wadada boqol jirka baan galab la sheekaystay waxay ugu tiri ma waxaad rabtaa hawsha inaad gasho haa waxay tiri ma ogtahay intaas oo ardaa inay ku soo hoyatay oo hadii rabbu ku idmaayay ay hawshaasi ay suuroobi weyday waa maqlan ku yiri ma ka warhaysa asbaabtii la suurtoobi tiri maya fariisay tiri wala fariistay marka gurigeeda hoos galbeedkiisa la fariistay islaan weyn waa yeelo asleeyahay 100 sano ku dhowdaa ama way ka sareysaa aagaas ah bay ahayd waxay ii sheegtay waxyaalihii ka soo dhacay oo dhan anoo dad fara badan soo wareystay labada dhinac soo wareystay dad fara badan oo iyaga ahalkooda ku xeeran
oo qabaa'ilka kale ama beelaha kale oo haddii rabbi kudma iyaga ama lahalka ama la deriska oo ku xiran anoo wareystay dadkii xawaa'ishii waxaan ka dhexdhaceen hoose labadii beelood oo Cabdi Maxamuud iyo Reer Saalax anoo wareystay inuu guud ahaan beelaha ay ka soo jeedaan oo dhulbahante ay warsangeli ama harti anoo wareystay beelaha isaaqo ku dhagan iyo dadka haddii rabbi kudma ahalka u ah anoo wareystay haddana waxaan is leeyahay ayaydaasi waxay isiisay furihii aan hawsha ku galay waxay ii sheegtay meel geed allaala geedka arrintu ku soo kuftay iyo asbaabta u soo kuftay mar waxay tiri culimo u diinku kuma jirin oo wax dadkii culimada waaweyneed oo gobolkaas ka shaqaynayay mar waxaa la isticmaalay tiri xoog dawladeed kaliya mar waxaa haddii ka shaqaynayay tiri odayaal kaliya oo xoog iyo awood maana haysan mar waxay tiri labada beelood hadba beel baan markaas diyaar ahayn laga yaabo in dekanadu xaggeeda ay ku maqnayd laga yaabo marka waxay ii sheegtay malafkii oo dhan bay ii fasirtay waxaan dhihi karaa macluumaad fiican bay ahayd marka arrintaas ay intee inagu qaadatay waqti leeg dadaal intee leeg u gasheen dadkii inta iskugu keenteen qabanqaabada marka laga tago aan soo qabanqaabinaynay waxay noo qaatay maalmo 13 cisho ah bay noo qaatay waxaan qaadanay taktika ah in aan isugu keenno geed hoostiisii dhaqanka Soomaalida ahayd waxaan qaadanay taktika ah inaan haddii rabbi ku idmaayo meel aan telecommunication lahayn inaan dadka geyno si dadka constituentsiska ah ama dadka ay dadkaan xiriirka la leeyihiin odayaasha meesha soo keenay oo dhan aan uga soo jarno si ay iyagu u tacaamulaan isu fahmaan isu dhexgalaan u sheekaystaan saxanka wada galaan ay haddii rabbi ku idmaayo ay waqti isu helaan sidaa daraaddeed waxa dhacday dadkii xataa bannaanka kala soo hadli lahaa oo laga yaabo inay fasaadin lahaayeen arrinta waa ka go'doomina geed cidlaan geynay oo miyiga caadiga noo ah odayaal waaweyn oo garaad Saleebaan iyo ay ku jiraan garaad Cabdullaahi Cali Ciid iyo baa joogay oo runtii magaalo mooyee miyigaas aan runtii fariisan karin ama ha noqoto duruuftooda da'ood ama ha noqoto duruuftooda maamuus ama ha noqoto duruuftooda caafimaad ha noqoto ama ha noqoto duruuftooda maartay ii sheega dirab duruuftooda kala duwan ku xiran iyaga taasi marka waxay keentay in wixii si smooth u socdaan si tartiib u socdaan oo aan si saxar la oo aan turxaan lahayn ay u socdeen macnaheedu taas ma aha doodu ma adkayn macnaheedu ma aha lama kala kacayn macnaheedu ma aha doodu ay sheeg mararka qaarkood ma oodmeen macnaheedu ma aha laakiin si gobonimo leh oo dhaqan leh oo maamuus leh oo isxiloodin leh oo wax isu xeerin leh oo fara badan oo wanaagsan bay ku socotay arrintu waxaan ogahay aan ka warhayay in aad odayaasha dhaqanka ama culimo aad keenteen oo meesha culimo dhamaysay dhaqanka qudhiisu qayb uu ka qaataan u maleynaya dhowr iyo 10 kiis bay ahaayeen culimadu 3 kiis kaliya galeen 3 kiis wax loo waayay xal sidaa daraaddeed iyaga waxay ku isku waafaqeen in arrinta loo daayo culimo u diin qadaha loo bandhigo culimada go'aan ka soo gaarto ay xukumiyaan xukunkaasna ay ku qancaan sidaa daraaddeed culimaan u yeernay culimadaas waxay ka koobnaayeen gobol walba nin baan ka keennay Boosaaso Qardho Gaalkacyo Laasacaano haddii rabbi ku idmaa Garoowe meelo fara badan oo kala duwan yaan culimo u diin ka keennay kuma aanay jirin labada beelood culimada aan keennay beelaha kale oo ahalka oo ku xiran bay ahaayeen subaxdii bay yimaadeen gelinkii dambe hawsha waa la dhameeyay 3 kiisba iyagoo markhaatiyaashii dhageysigii kiiska xukunka ay soo saareen wixiiba waxay ku dhameeyeen muddo 7 saacadood waxaan ogahay magaalada Bohol oo kale iyo Laasacaanood oo kale iyadoo kale dhibaatooyin noocaas oo kale inay ka dhaceen magaalada Bohol waxaan ogahay iyadoo dagaal ka dhacay bal ka waran iyadana dhibaatada inta leeg iyo dadaalka aad u marteen aniga oo u gudbi doona Gaalkacyo iyo meelaha kala duwan ee aad ka soo shaqaysay runtii waxyaalo fara badan baa deegaankanaga Soomaalida ka dhaca waxaasina waxay u baahan markaas dad u kaca oo runtii xuduuda hay'adaha iyo xuduuda haddii rabbi ku idmaayo xawaajistan mustanaca ah ama xawaajistan maadiga ka gudba runtii arrinta waxa ka qayb qaata oran kara salaadiintii gobolka Sool ama si kala hadaan u ku soo dhawaado salaadiintii dhulbaante anigu kaliya iyagan riixayay iyagan baritaarayay iyagan aaliyaadku sameeyay gaadiidkii shidaalkii nafaqadkii waxyaalahaasaan ugu qaylinayay in loo helo laakiin aqliyadii iyo xaajada waxa galayay waxay ahaayeen salaadiinta dhulbaante waxaan ka duulay Laasacaano
waa duulaan nabadeed waxaan tagnay haddii rabbi ku idmaayo meesha la yiraahdo waxaan dhihi karaa salaadiinta waxaa naga maqnaa garaad saleebaan garaad maxamed umaa naga maqnaa iyo waxaan isleeyahay garaad mashqare iyo adugu nin laba nin oo kale baan filayaa hadda maskaxda laakiin ragga kale garaad jaamac garaad cabdullaahi soofa duraan garaad saleebaan cabdullaahi ciise cabdisalaam garaad cabdisalaam xasan haddii raggaasoo dhan garaad abshir saalax raggo dhan waa yani duulaanka ka wada qayb galnay waa israacnay buuhoodla waxaan fadhinay zaban arrinta runtii waa ku hagooganay wax fara badan bana laga qabtay arrinta runtii aadka u wanaagsan waxay ahayd markii la dhex tago way maqlayeen isimada oo dhageysanayeen oo soo fariisanayeen hadba reer baa loo tagay hadba ilaa markii dambe geed la soo keenay la wada hadal siiyey xaajadii wax laga gaaray inta aynu ku guda jirno dhinaca nabadaynta gaalkacyaan ogahay oo magaalo problem badan ah magaalada problem ma leh laakiin dadka degan baa khilaafaad badan oo soo noqnoqda u jiray magaalada way kala qaybsan tahay waxaan ogahay dadka ugu badan ee gacanta ka geystay dhinaca nabadaynta magaalada gaalkacyo inaad ka mid tahay bal ka waran say inigu suurta gashay inaga u soo noqon doona dagaal xataa Puntland iyo qayr ka mid ah beelaha Puntland ay wada galeen bal horta labada dhinac koonfurta iyo waqooyiga oo inta badan dadaal badan aad ka sameyseen adiyo dhaqan kale oo ku nool magaalada gaalkacyo ka waran bal xaaladaas say u dhacday iyo howleedii dad fara badan oo wanaagsan baa gaalkacyo jooga labada dhinac odayaal ah ama ha noqoto levelka yani isimada ama duubabka waxa la yiraahdo ama ha noqoto levelka nabadoonada ha noqoto ama dad samaha jecel oo wanaagsan oo fara badan oo magaalada gaalkacyo laakiin magaalada gaalkacyo waxa la oran karaa waa hal xiraale mushkiladeeduna hadda ma soo bilaaban oo mushkilad qaangaara oo mushkilad dawladii hore ay ka tageen ومشكلة دولتي وقدم بيسمح مساعد برا دولتي كوري سلفتي يحكوا أجيد وقال كعي وجوجا الله إله ومحل غيرهم بالليل هذا وميلش دوي تسقط بوي أريد كلهم مهمة كل قال كعي هذا حكم ذم وقبائل كوين الصومالي ذا ميله سجي مادان بيكم متى مقالة ذا ومقالة قبائل كوين الصومالي ذا قيب كم ذا يودقين ويا وحنا نركها مشكلة ذا هيسا inaan u aqli waayin baan filayaa inaan u talo waayin baan filayaa inaan u hanti waayin baan filayaa dad fara badan oo wax aqoon oo culimo u diin loo odayaal dhaqan loo aqoon-yahan loo dad elite academic ah loo dad wax soo bartay loo dad siyaasiyiin oo bayleeda magaaladu oo runtii daafa adduunka iyo Soomaalida deegaankeeda kala jooga waxaan aaminsanahay waqtigeedii lama gaarin laakiin waxaan isleeyahay hadda waxa muuqda baahidii baa muuqata labada dhinacba dadku waxay u tanaagoonayaan wax u qaylinayaan wax u gacan hadinayaan nabad laakiin wax u baahan cidii muftaaxa qaadan lahayd cidii noqon lahayd rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri dadka waxa ku jira dad mafaatiixun lil khayr maqaaliqun lil shar dad muftaaxa u ah khayrka muftaax u ah shartana furayaalo gaalkacyo kuwaas sugaysa inay joogaan bana filaya mar dhowna ay soo bixi doonaan ilaahay waxay inagu dhib badnaa markii aad gaalkacyo ka shaqeynayseen iyadoo aan ognahay meelo badan ka noqdeen bal arinta waqooyiga koonfurta adoo suldaanka waliba salaadiinta gobolka mudug kamid ah dhinaca kalena nabadda ka shaqeyn jiray oo tii dhaqanka iska bedaa tii arrimaha bilaadanimada iyo maartay ama hay'adaha caalamiga ah aad kala shaqeynaysay bal ka war maxaa dhibaatooyinka ugu badnaa la kulantay maxaa kamid ah gaalkacyo mushkilada ugu badan ugu weyn oo haysato arkaya waxa weeyaan horta kala qaybsanaanta magaalada kala qaybsanaanta maamulka meelaan hal maamul lahayn oo kala qaybsan saas kale haddana saas way tahay waxaa jira kala shaki ay kala shakisiin qabaa'ilka meesha dega way u baahan yihiin boogahooda in la dhayo way u baahan yihiin inay iscafiyaan way u baahan yihiin inay walaaloobaan way u baahan yihiin inay xaajadooda si dhab uga wada hadlaan way u baahan yihiin inay gartaan magaaladu inay nabad u baahan tahay magaaladu inay maamul u baahan tahay magaaladu inay u baahan tahay qoriga iyo xabadda in laga dhigo magaaladu inay u baahan tahay dadkeeda waxgaradka in loo badbaadiyo magaaladu inay u baahan tahay khadamaadka caamka ah in la hormariyo magaaladu inay u baahan tahay wadooyinkeedii iyo jidadkeedii caafimaadkeedii waxaas u baahan tahay waxaas caqabad weeye baahida in la garowsado oo laga shaqeeyo baa waxay tahay fursadda ugu muhiimsan oo wax laga qaban karo marka fursaddii in waa la garowsan yahay laakiin in loo dhaqaaqo oo dadkii aan weli ka soo gayn horta caqabadda koowaad caqabadda labaad waxa weeyaan magaalada hubka xoog yaala qof walba gurigiisa u baayaala
legacy yani taariikhdii dagaaladii qabaa'ilku meesha ku dirreen weli meeshay taala reer meeshay taala waxay u baahan tahay dad nabraxaas iyo qodobadaas ka siiba bay u baahan tahay waxaan rabaa waxaa jirtay arrin ka dhacday gaalkacyo xaafadda garsoor waxaa ahayd dadkii qaybta laxaad ka qaatay ee maamulka Puntland iyo dadka ku nool xaafadda garsoor sida laxaad kale uga shaqeeyay hay'ad baad leedahay ka shaqeysa arrimaha nabadeynta iyo bal hay'adaada iyo sida maamulka Puntland iyo dadkii xaafadda garsoor ku dhaqnaa aad isku keenteen balayadana noota runtii waxaan oran karaa qadiyadaas waxa qabtay hawshaas waxa qabtay dhammaan isimada deegaanka gurmad weyn oo dadka beelaha deegaanka especially beelaha daarood oo ilaa caabud waq ka yimid ilaa iyo boohol ka yimid ilaa iyo boosaas ka yimid ilaa iyo meelo fara badan isaga yimid ilaa iyo baran ka yimid ba isugu tagay meesha isugu yimid iyagaana arinta caynaankeeda qabtay iyaga la fuguray dhuuxaamay u garnaqay fiiriyay wixii meesha ka dhacay kadibna biskiisii u daweeyay fayskii hore waxa loo qabtay gaalkacyo fayskii dambana waxa loo qabtay waxa la yiraahdo garowa loo qabtay laakiin waxaan aaminsanahay wali waxa loo baahan yahay wali in dadku ay laabta isu furaan wali waxa loo baahan yahay dadku in nabad ka wada shaqeeyaan wali waxa loo baahan yahay in haddii ay jiraan rawaasib iyo waxyaalo haraadi ku ah wixii dhacay oo laga yaabo inaan yani loo qiimeyn karin xaajo taagan laakiin loo qiimeyn karo wax u baahan in la dhayo waxyaalo noocaas fara badan oo hadda jira way jiraan waxaan qabaa inay waqtigeedii tahay hadeertan goortii reer gaalkacyood inta tashadaan wada hadlaan isdaaweystaan ay walaaloobaan ay arkaan inay yihiin ummad waaxid oo meesha ku wada nool mustaqbalkooduna uu ku xiran yahay iyagu inay wada shaqeeyaan iyagu inay iscafiyaan iyagu inay gacanta isqabsaan iyagu inay mashaakilaadkooda wada wajahaan oo la yiraahdo Horn of Africa Peace Center Peace muxuu ka shaqeeyaa kulli waxaan ogaa inuu gacan ka geystay dagaalkii xaafadda garsoor iyo dadkii deegaankaas iyo dawladda inay wada heshiisiyo oo uu gacan weyn ka geystay oo odayaasha meelaha badan ka yimaad ka sheegtay adigu aad gacan weyn ka geysanaysaa adogan hay'adaha caalamiga iyo dadka la kaashan oo bulshada reer gaalkacyo iyo adiguba oo adigu hormuud wahay Axmed runtii waxa la oran karaa aniga ururkayga iyo ururada kale waxaan oran karnaa wax la sheekay ma geysan habeeraatay markii loo fiirsho dadweynaha reer gaalkacyo iyo diasporahooda iyo dadkooda magaalada degan iyo ganacsatada iyo say iyagu sooriyooyin ku bixinayeen oo ay iyagu dadka u sooriyeen oo iyagu dadka soo keenayeen oo guryaha u goglayeen oo alla bariga u sameeyeen oo hadii rabukin ma gurmadka waxa gurmad umadeed buu ahaa waa jirta anoo khibrad ahaan iyo yani ka farsamo ahaan waxyaalo fara badan baan tareeyay laakiin waxa ugu weyn wax bixinaya oo gacanta bixinaya waxay dadweynaha iyaga reer gaalkacyood oo annaga isku tashanay dadweynahan wax badan ma ka qaban runtii arinta aan suldaan u soo noqono magaalada gaalkacyo waxaad ka samayseen olole ballaaran adigoo horkacaya sida kale oo TV-da ka baxayeen adiga iyo group dhalinyaro ah oo ka shaqeynaya dhinaca nabadda iyo holka arintaas bal xagee ku dambeysay adoo wadaan ogaaya bal xagee ku dambeysay runtii waxa la oran karaa rasuulka عليه الصلاة والسلام إن لكل عمل شيرة ولشكر شيرة فترة عمل كسان نشاط بوليه ونقضى يعني مرك عمل كان نشاط كيس وقت ياسوها حدنا هبيرات ما أنا بحن فكرة دي إني ولي نوشاي فكرة دي إني ربط ولي نشقيسو هندي بلو أمامه هذا يرتان وحياة فرق بدن وهدي ربكم الله ودانا ويجرانين أرنتها سرنتي وحين برتي dadku inuu isku duubmi karo waxayna bartay in xawaajista qabaa'ilka la dhaafi karo waxayna bartay dhalinyaradu inuu xoog yihiin waxayna bartay saameynta dhalinyaradu ay ku leeyihiin bulshada waxayna bartay mentality-ga iyo maskaxda dhalinyarada ku jirta aqoontooda hindisahooda nabadda suugaantooda deeqdooda waxayna bartay dhalinyaradu inay yihiin xoog qiimo leh oo wax bedeli kara ay arrintaasna bartay runtii wax fara badan bay qabteen oo magaalada nabadeed ha noqoto ama isku xirka dhalinyarada ha noqoto ama ha noqoto hadii rabbu ku idmaayo inay dhalinyarada baraarujiyaan oo tiimam u sameeyaan oo magaalada nadaafadeeda jidadkeedii nalalkeedii isu keenkii shirar fara badan bay qabteen runtii arrin waxay ahayd taariikhi ah marka soo xasuusto aniga dareenkaygu runtii wax fara badan bay u geysataa waxaan oran karaa waxay ahayd وصمة الشرف في جبين التاريخ علامات أي كقرين هدير بكون دبنا كتاريخ ذي كقرين به. أنت كجرتي برامج كان نبضينتا
oo hadda aan dhowr gobol ka soo qaadanay laakiin aan ogahay meelo badan inaad gacan weyn ka geysatay maxaa ka kordhay adigu kulli wad dhaqan ku jiray oo nabadayn baad u xil saaran oo noloshaada ku soo barbaaray tii family-gaaga iska marka laga soo bilaababa ka waran maxaa ka khibrad ah kaaga soo kordhay iyo dhaqan ahaan iyo bulshadu siday ugu bishahay dadka maartay wax garadka runtii horta markii intaan taa u gelin shakhsi ahaan dadka wax ka bartay wax yar ka bartay baan kamid ahay cilmigan international conflict managementiga waxaan takhasus sare ka sameeyay jaamacadda Nairobi University Institute of Diplomacy and International Studies oo aan course ka master ka sameeyay waxaan kaloo United States Institute of Peace ka sameeyay koorsooyin ku saabsan Mareykanka ah waxaan ka sameeyay koorsooyin ku saabsan iyaguna negotiation wada hadallada iyo conflicts si loo analyze gareeyo iyo sidoo kale Harvard University waxaan ka sameeyay iyaduna takhasus isaguna ah conflicts si loo research gareeyo iyo humanitarian policy waxaasoo dhan waxaa ka qiimo badnaa odayaasha Soomaalida xirbeegtideeda dhaqan yaqaankeeda waayeelkeeda wixii aan geedaha hoostooda uga bartay oo ii sheegeen baa si dhigi kara ka qiimo badnaayeen conflict kaliya oo ka dhacay مثلا كان كل شيء جاي وكلا كذا قبل كان سنوات ولحظة كنت سكن جري أما كي يلو كلا كذا أما كي أن يدير دور تبغى شيء لو فديني مقالة اللاج ودبيس كي وعبد الحليم كل شيء وضياش الصومالي ذا عشرة عن كقاتي دروس عن كقاتي مرنا بأمة دين من كورسيس عن كقاتي وحن كبرتي إلا صبره وحن كبرتي حاجة إلا السوق waxaan ka bartay Soomaalida garteeda in la bajiyo waxaan ka bartay hadii la kala kaco in la isku soo noqdo waxaan ka bartay xikmadda iyo guurtinimada Soomaalida waxaan ka bartay qiimiga odayga Soomaalida waxaan ka bartay qiimaha nabadda ka bartay waxaan noqday runtii arday midwaac ah odayaashaas sidaan inagoo barnaamijkeena gabagaba ugu jirna dhawaan waxa ka dhacay magaalada Muqdisho shir ay madaxda dhaqanka Soomaalida la isku yeeray iyadoo ad khilaafaadka aad ka sheekeynaysid u gaaray dhinaca siyaasadda iyo dawladnimada bal ka waran odayaasha dhaqanku talaabo inta leeg bay ka qaadan karaan sidii ay u xalin karaan xasiloonida iyo dhibaatooyinka inta badan geeska ragaasida geeska Afrika horta odayaasha Soomaalida isugu tagay Muqdisho isugu tagay waxay u tageen mandate muhaddad ah hawsha qabanay howl maxadad ay ahayd laba waxyaalood baa loo diray yani ay u tageen meesha mid waxay ahayd inay soo xulaan dadka ansixin lahaa baarlamaanka Soomaaliya midna waxay ahayd inay soo xulaan xubnihi baarlamaanka Soomaaliya runtii fursad weyn baa dhaaftay oo jeclaan lahaa inay hadday isu tageen ay ka tashadaan waxay ahayd ardaygii Soomaalida sidii u heshiisiin lahaayeen sidii beelaha u dhexmari lahaayeen sidii u walaalayn lahaayeen sidii boogaha u dhayl lahaayeen sidii geed walba oo guriga Soomaaliya u harsan lahaayeen sidii min daraf ila daraf umada u dhaxmar lahaayeen soo tiisheed u xasuusin lahaayeen wixii ku dhacay soo fag lahaayeen kadibna u daweyn lahaayeen horta arintaas taladaasi runtii odayaasha Soomaalida way dhaaftay hadday isu tageen fursad bay ahayd ay gartaan hadduu xilligan dhamaado oo dawladda lagu dhisay halka ay dhamaato wixii qaban lahaayeen kadib ay qaban lahaayeen inay xadidaan baan jeclaan lahaa oo isugu tagaan fursadda way dhaaftay runtii baan dhilan hadda lafteeda waxaan qabaa inay bannaan tahay oo wali intaan Muqdisho ka soo tagin inay shiraan wada hadlaan isu tagaan ay yiraahdaan xagga Soomaaliya socota in la dhiso dawlad oo power struggle-ka iyo cutting-kan waxaan la qaybsanayo iyo ana madaxweyne noqonayo ana ra'iisul wasaare noqonayo ana xagga noqonayo tartanka waxa ka muhiimsan beelihii Soomaalida ahayd iyo guryahoodii reconciliation bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin healing bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin inay dadkii la iscafiyo oo cafi caam u dhaco ummadii dhex maraan iyagoo boqolaalo socda oo sidii daadkii socda ay magaalo u maraan meelaha ay suurtoobayso taas waxay damaano qaadaysaa dawlad runa oo Soomaaliya inay dhalato maxaa la ummadan heshiin ummadan cuqud ka bixin ummadan xinjirtii laabta ugu jirtay aan tufin
dawlad inay wada dhisato oo ku naalooto arrin adag waa si dhici karta ilaahay waa ka dhici karta su-aasha ugu dambaysa maxaad kula talin lahayd dhaqanka Soomaaliyeed iyo bulshada waliba adigoo dhaqan ku jira deegaamada ama dadka beelaha islaaya maxaad tala u soo jeedinayaa adoo aan ka faa'iideysanayno khibradaada xagga nabadeynta iyo ka shaqeynta dadka isku keenta iyo khilaafaadka maxaad kula talin lahayd waxaan oran lahaa dhammaan meelaha maamulada ka jiraan ee ummadda Soomaalida ardayda Soomaalida ha noqoto Soomaaliya ha noqoto Somaliland ha noqoto deegaanada kale oo Soomaali joogtaba waxaan dhihi lahaa waxa ugu daran oo hadeertan wax ka dhacay waxa weeyaan khilaafaadka dhulka baraageer baa la qodayaa ama tuuleer baa la sameeyaa 200 qof dhalisaa waan garanaynaa daroor wixii ka dhacay waan garanaynaa Yamarugle wixii ka dhacay waan garanaynaa wixii ka dhacay cagaarna wixii ka dhacay waan garanaynaa cagaar wixii ka dhacay cagaar waan garanaynaa wixii ka dhacay bacaad wixii ka dhacay oo Suleymaan iyo Marti iyo dir dhexdeed wixii ka dhacay yani ma soo tirin karno يعني وحي كدعي هدي ربو كد ماي بنجيل قدام بيسي يعني مليار بلا فرفارية أما قيس بل يعني براكة قضانية أما تولي كديان يعني والسكودية لا بقول غفا كل منيسا أريد اختاروا بولوسيهان وإني ميلها معمولة كتير وصاب هذا إن الله يسكرين تولي دم إن وحي لا يسيو وحي سلوك جاي النقدان إيه هدي واحد عان سو مالد إني سمير اللي هذا عيسى صدق بقولون بعد مش داعي نقولنسا مركز هذا نوع حل يدك ولا على هالشيء مركز حل حل يدلها النقد ومركز حلقة في الانتماء حل يدل له نقوم مركز كم قفدي متى مش بقوله في مش داعي نقد فحل يدك ولا على هالشيء حل يدلها النقد وحن أرنا هرتوري سومالي بأرنتاس تلاه سميسو وحكوان تودو وحن أرنا وإسليني وإسوبابيني قبائل هم أسود وأوجان قبيل كانوا سقيم الحين وإن نسكت لنا مالك سكت بعتينه وإنه حسوترين أرنت الصومالي كوانتود أرنت أقدم بسحر الله وضياش الصومالي ذو هو استاجان reconciliation عام هو استاجان حدي لا السياسة ده لنا سكديان لقن كوده كل عبتان سياسة ده ويعني وحي أوجيسين يسارونتي جرافة وين ماموس كودي بريدسان كل سوني ضده كلها ودتكو هايين بيريسا ورنيكي reerka ka tirsanaa shalay asku dirirteen hadii rabo ku idmaayo xubin baarlamaan ama wax la mid ah hadda tira kale ku duceeyay wariga ducadaada ka duceysan maayo kulliye marka gurigeena aan ku laabanaan dhigna salaam daawadeel barnaamijkii Martisoor intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka Martisoor oo aan ku soo qaadano dhinaca dhaqanka ammaanka caafimaadka waxbarashada iyo arrimaha kala duwan ee dadka Soomaaliyeed waxtarka u leh maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka waxa marti igu ahaa Suldaan Cabdisalaan Maxamuud aad ayaad u mahadsantahay Suldaan barnaamijkan aan kugu marti qaadnay oo aad naga ajibtay waxaan iga tagnaa sida iyo nabadgelyo waxaana barnaamijka soo saaray aniga Axmed Maxamed Jaamaca dhinaca farsamada iyo kaameradana waa Maxamed Faarax Oomade tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay amaana Allah iyo amaana rasuul